Khartoum waa magaalo qadiimi ah waxaanay ka mid tahay gobolka Daadmareed, balse taariikh ahaan waa degmadii ugu horeysay uguna faca weyneed ee gobolka Daadmareed. Khartoum waa magaalo xadaariyad fog leh. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka reer Khartoum ayaa iga warramay taariikhda faca weyn ee degmada reer Khartoum. 946 baa magaalada la bilaabaa ku. dagaalkii labada adduunka sanadkii laga soo noqday sanadkii ka dambeeyay ayaa la bilaabay. meeshaan ay igu timid anigu uma nin yimi ama ku manihi oo duwina ku dhashay dushiisa dhanna wadada oo gamaan bayday barina ma aqaan galbeedna ma aqaan hawdna ma aqaan halkaas baan ku noolaa. waxaan ku sheegayay sekada gubatay iyo ragga halka lagu leeyahay waa shalay 93 labada bilood ee sanadka ka hor iga dhigo. magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Axmed Daahir oo agagaarkan Khartoum iyo intan reer guuraaga degay hareeraheeda iyo intan ku dhowdhow ilaa gudub ilaa Jeelay ilaa Milaaxa intan agagaarkan dadka balcad iyo intan reeraha dega ayaan anigu ahaa muddo dheer ilaa intii aan aqli yeeshay aan karaadsaday. waxa weeyaan waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa intii aan aqliga lahaa anigu ilaa 80aadkii intii ka dambeysay anigu aqli ayaan caadi baan lahaa nin weyn baan ahaa. inta waxa igu soo maray hawlo badan oo waxyaabo badan oo laga soo sheekay lagu soo koobi karin oo fara badan baan ayaan soo arkay oo la yaab leh ma garanaysa. marka aniga inta aan joogay magaaladan Khartoum marka laga hadlayo taariikhdeedu aad iyo aad bay magaalo aniga wali bay iga sii taariikh fog aad u fog laakiin inta aan garanay anigu waxa weeyaan magaaladu marar intii dalku burburkii ayay haydo marar waxay hayd intii dalku burburayo inta iska magaalo basaraarsan oo xadna ku taala dhinac ka miinaysan oo dadka maalin walba leeyahay hebel bay miina dishay ama gaari bay miina ku qaraxday oo way soo fara badnaan rag fara badan oo odayaal iyo dad badan oo la garanayo geela hadalkiisa daacay meelahan ay kala kacday ama kuleysay lama soo koobi karo. dhinaca kale degmada reer Khartoum ayaa muddooyinka u dambeeyay ayaa ku talaabsatay horumar baaxad leh. deegaanka ayaa ah dad xoolo dhaqato ah. maayirka degmada Maxamed Asad Dhugad ayaa iiga warramay qorshaha u hirgalay iyo kuwa hadda ay gacanta ku hayaan. saaka waxaanu indheyndeynay ama aan qorshe ugu soo baxnay wadadan weyne wadnaha oo magaalada oo ah biyaha ka soo raaca qaybta waqooyi. dabeetana waxaan doonaynaa inaan biyaha halkaa ka jarno oo isku sinno oo dhirtii iyo ubaxii iyo lagu beero lagu talagalay wadooyinka arakaawo dhigno isku sinno ilaa magaalada afkeeda. baryahan waxaanu hawlo badan baan degmada ka wadnay. siiroogan degmada waan dhisnay. saldhiggii dib habeen baan ku sameynay. maantana waxaan halkan ugu doomaynaa barnaamijka xafiiskii dawladda hoose isagana dib habeen baan ku wadnaa iyo dib u qalabayn daalooda. waxaan kaloo intaa ku darayaa oon ummadda u sheegayaa reer Khartoum hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba waxaanu halkan u qorsheynaynaa degmo ganacsiyeed ah sida goobaha wajaalo kale iyo meelo kale oo xadadka. waxaan halkan idinku sheegayaa iminka oo kale marka berbero laga soo qaado agabka ama bagaashka ama raashinka oo kale waxa la geeyaa Hargeysa waxaana dib loo soo celiyaayo baabuurka lagu soo qaataayo waxa la geeyaa kilalkan Itoobiya oo badi dadkeenu degan yihiin. halkii inta soo wareega laga gali lahaa waxaanu sameynaynaa halkana laga soo gudbinayaa raashinka halkana la dhigayaa halkii Hargeysa laga soo wareejin lahaa. dabeeto qiimaha Hargeysa ama Burca u ku yaalo ayaa halkan lagaga siinaya. dabeeto dadka hawdka degan ama degan kilalka shanaad waxay ku qaadanayaan raashinkii inta Hargeysa laga siiyay iyo noolkii ay ku qaadan lahaayeen oo boqolkiiba 50 ay ka maqantay. haddii gaariga 500 dollar laga qaadi jiray 250 buu ugu tagayaa bas doonaysi. ganacsatada iyo wixii wax ka qabsanaya degmadana waanu soo dhaweynaynaa. dhulkii baanu haynaa magaalada sarfeygii baanu ka saaraynaa laakiin magaalada waxaanu ka dhigaynaa
إن شاء الله وأنو قاعد هملة ذي هكسيجي مجال ganacsiyeed u dhiganta sida wajalo kale muxuu ahaayay harta shiikho kale macni meel xada oo ah in lagu ganacsado oo bulshada halka joogtaana loo fududeeyo siday agabkoodu heli laayeen waxa ugu yar insha Allah xilli aan qorsheyno horta sanadkan ayay bilowgeedu bilaamayaan laakiin waa in irbadda insha Allah halka laga helaa oo dadku waxay u baahan yihiin oo dhan halka laga helaa marka waxaan ka codsanayaa ummadda ganacsatada inkastoo aan qaar badan wada hadalay qorshe wada gaadhnay shirar aan wada galnay oo ganacsato waaweyn oo ariirayaala oo ariga maca halkan la keenayaa silid baan ka furaynaa dabeeto waxay noo ballan qaadeen inay nala qabanayaan oo higsiga aan u leenahay himiladiisa nala fulinayaan marka waxaan halkan uga baaqayaa ganacsatada iyo qurba joogta lacagta iska haysatay lacagta waxay ku qabtaan garan la inay imaadaan anaga qorsho hayna anaga qorsho la sameynayna anaga la mihintisayna anaga tusayna siday heer ku gaari laayeen degmaduna ay u noqon lahayd degmo ganacsiyeed Amsa Jaamacare telefishinka caalamiga